Bismillahir Rahmanir Rahiim kulan haboon soo dhawaada saaxiibayaal qaybtan waxaan ku eegi doonaa hogaamiyaha cusub ee Iran ay yeelatay iyo waliba sidoo kale muxuu kala soo kordhi doonaa Mujtama Khamenei waa wiil uu dhalay markaasi Ayatollah Ali Khamenei Mareykanka safarin nooc ayay direen waa maxay talaabooyinka khibrada waqtigan ay dirayaan sidee ayuu markan wax ugu bedeli doonaa hogaanka cusub ee markan uu ku fariisay kursiga abiis hore ugu fadhiyay maxay tahay wasiirka amniga talaabadu ka dhawaajay in gabi ahaanba ay tiro in ka badan 100,000 oo askari ay gacanta ku dhigeen sidee ayaan markaasi ula macaamili doonaan sidoo kale waxaan eegi doonaa hogaamiyahan cusub ee waqtigan markan hogaanka u qabanaya Iran fariimaha markan ugu imaanay Mareykanka cabsi gelin ma ku yeelan doonta qaybta sanaba saaxiibana halkan ku kula wadaago soo dhawaada markuu ugu horeysa channelka soo socodka Greya like meel in gaarsanaysa inoo la Greya mahadsanideen hogaamiyaha cusub ee Iran markan ay yeelanayso waa wiil markaas uu dhalay Ayatollah Ali Khamenei oo lagu magacaabo Mujtama Khamenei oo waliba u muuqda markan hogaanka abiis ku fadhiyay inuu isna mar kale uu gacanta ku dhigay taasi oo inta badan Mareykanku waqtigan fariimo culus ugu digayaan waxaan inta badan soo baxaya ama soo taraya in hogaamiyaha cusub looga digayo talaabooyinka markan uu qaadi doono in wax badan uu ka bedelo qorshe abiis mid ka duwan uu la yimaado iyagoona sheegay hadii talaabadii abiis uu qaaday uu isna wadadeedu fuulo in gabi ahaanba duqeyn cirka markaas isna aan ku dili doono iyadoo waliba khubaradan ay ka digeen in wax badan laga bedelo qorshaha ka dhanka ee marka kan hogaamiyaha cusub ee Iran ay yeelanayso saacadii ugu dambeeyay si weyn ayaa dabaaldegyo iyo waliba hambaliyeen ugu muuqatay waana qorshaha ugu adag ee waqtigan Iran mar kale ay fooday saartay waxaa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Iran isna shaaco ka qaaday in tiro badan oo kamid askarta Mareykanka ay gacanta ku dhigeen wali markan maxkamadda la soo taagi doono xilli howlgallada halkaas ay ka socdeen ay gacanta ku dhigeen waxaana sidoo kale inta badan la tilmaamaya in hogaamiyahan cusub ee waqtigan ay Iran ay yeelanayso in qorshaha ugu adag ama talaabooyinka ugu culus markan uu qaadi doono ay qayb ka noqon doonaan howlgallada ka dhanka ee Iran iyo waliba sidoo kale Mareykanka Israel iyadoo saacadii ugu dambeeyay si weyn loo arkay duqeymo badan oo waliba Israel ay ka geysanayso gudaha magaalada markaas Tehran sidoo kale waxaana inta badan aad loo xusaya in qorshe ka duwan tii hore markan isna sii degaya talaabooyinku adag ee uu qaaday ayaana la tilmaamay in yihiin kuwa markaas mar kale saameyn xooggan ay ku yeelan doonaan walo aan si cad markaas shaacan looga qaadin waxaana la xusaya in qorshaasha ugu muhiimsan markan ay tahay tii hore mid ka duwan markan dagaal cusub inuu isna cilaamiyay taasi oo ku xusay qorshe adag oo markan wax badan looga bedeli doono in uu gabi ahaanba miiska uu soo saaray Mujtama Khamenei waa nin dhalinyaro oo daayira waliba u muuqda markan in dagaalku caboon yahay waliba si weyn ugu burburin doona Israel iyadoo qorshaha ugu weyn ay yihiin kuwa markaas markan saameyn xooggan ay ku yeelan doonaan waxa warar kale ka soo kordharkeed ku wadaay doona si share gareey muuqaalka like meel gaarsanaysa meel gaarsiin mahadsanid